كفتك أنت أنا بلا جيبت هذا الكيكة إني كفتنا أي رأيي فيسبوك يستيك ريسكي لو قيبين يجيبون يقص هاسكار نينكلو كين عيلة جمع لكم وأنا نطلب بدل بعض السائل لكن واحد هذا هو وضع نبيت نقول هذا لنا وواحد وضع لنا حي وحن إحنا قالوا له هاي عندنا سيكرين waxaan bilaabi doonaa horta intaanan muhiimadda gabayga ujeedadiisa aanan gelin arag yar ayaan ka horreysiin lahaa dadku hadday yihiin dadkii dee hore ee waxay og yihiin ee arrin ah ama wixii ay maqlaan aan dee iskaga goosan jirin talo laakiin wixii ay hubiyaalay og yihiin wax ka odhan jiray aragtuna maynaa bahnaadeen hadda gabayguma gelinay anigu gaar ahaan waddanka waxaan ka maqnaa dhowr iyo 10 sano waxaan iminka joogaa 2 sano maalintii u horreysay eeriboodka ka soo degay waxaa socotay silsilad miimil la oran jiray waa la weydiiyey waxaan ku war waddanka anigu maan joogin ingiriiskan dee ice cream ku cunayay duruuftii lama beteli karo marka aan idiin imaadeen joogeen nolosha dadka dhadhamiyo ayaan wax ka odhan doonaa wixii day kaga soo baxaa waa isla maalintan taa aan sheegayay ayaan horta iminka wax ka odhanayaa anigu caadiyan shakhsiyan markaan halkan imid waxa aan doonayay fikir ka duwan xataa halabuurkayga oon la wadaagay baa jiray oo ah waa niyo dowladda aynu la dhisno waayo dowladda iyo dadku isma aaminsana aan la wacyigelinno ummadda aan la dhisno optionka kale aynu qaadanno marka dambe inaynu xaggaa dibadda wax ka sheegno waan isku daynay makaanigii halabuurka kale 100 jeer baan isku daynay ilaa maalintii cilaafooyna aan tagnay waxaan ku dadaalaynay inaan dowladda dibadda wax ka soo sheegin laakiin taladeedii arrinkeygii marka uu gaadhay halkii ku habboonayd waxaanu qaadanay tan oo ah kolba sidii kale ummadeeda wax ugu tari karno inaanu raacno tan marka intaa laga tago aniga wiilana qowiyay inaanu curdurnaado reer shakhsi gaara dan gaar ah anigu fikirkaygaan hadlayaa xornimadeedaan hadlayaa idinkana waxaan jecelahay inaad sidaas oo kale noqotaan mushkiladda ugu weyn ee ina haysata waxa weeye dadka intii wax kala garanaysay ee caqliga lahayd ayaa habranaysa dib u baxaysa dhowr hebel baa loo xiran yahay dhowrkaa hebelna noobay tirsadaan qofka wanaagsan ka cabsiya inuu sameeya dhaliisha eryata laakiin anigu waxaan odhan lahaa marxaladdaani maanta ka gudubno dalka iyo dadkan innagaa leh waxa aynu ka dhigno ayuunba mustaqbalka oo ekaanaya waxaan ku soo geli doonaa gabayga la yidhaahdo mayal si uu macno gaara idinku sameeyo waxaan jeclaa inaan halka sheekadiisa inaan idinla wadaago oo sheekadaasi fiican aa ugu fiirsataan nimanka garyaqaanadiina arrinkaa ay aad ugu fiirsadaan wiilada daafacna uu fadhiyaa arrinkaa welibana isagaa inta badan u dhuun daloola maalin maalmaha ka mid ah khamiis bay ahayd anoo gurigeyga ka soo baxay ayaan arkay 2 inan iyo hooyaday oo dibadda taagan qadadii bay ahayd waan sii baxay markaan saa u soo baxay ayuu maan maqlay waa kan walaalkii hooyadayoo leh iyo maxaa dhacay inankii baa markaa ila hadlay wuxuu yidhi walaalkii iyo walaalkaabaa inaan wax ku sameeyo موبايل كتبيه أنا كقارن مقرنة أيوة حكوا سنية مركا ولا الكي باحرا ولا الكا ما حدنا مركا محاد هذا ولا الكي حدنا محاسن كرا قولدي إنك واحد حكوا سنية لا لا يضايق علي أيه إلى الله بدي قلوبي وذي ما دمو يعني وورقت إيه قراءة أمان مسجدين المكينة وأقول ورنيو نما خير أنا ورث هذا نادي جاهل لها كايو بس كحنا لها مرة ثانية كايو محلين يقول كينو حلين هاي واحد صور ملا كينو كويجي هاي إلى ذلك كوسو صحيح صور قد اسمها هذا ولا صهر ولا صهر مركي ولا صهر أيام كوري يصابحوا لعبتي موبايل كنا سوقات وعنقول ورنيو كينا وتنا واحد كوري بتشاله أنا كايو كينو دمتي يعني كلامه وجي
dembi baan xataa saari warqad baan iska saxiixay ma haddana ma lacag baan kasii bixiyaa ninkii wuxuu ku dhawaad annaga booliiska ka hayno oo aan kaaso waa kuma booliiska adaaba naga hayo ha waana noo dhaxayna soo dah jimcaha dad telefoonka baan ku dhigay khamiisna telefoonka baan ku dhigay jimcihii xilligeedii baa isagoo laba askari wataa haddaba waa eedaysana garasiga laftiisu walaalkii baa eedaysana dhibaniyi maaha ayuu xaafadii isagii baaba askartii wataa waan ku soo baxay haddana waar maxaa dhacay askartii baaba doodaysa waxaan ku dhahdaa shicmaad seetaan mayne hooyaan kaxaynana war hooyaday kaxaysanaysid maxaad hooyaday ku kaxaysanaysaa nimankii baan qariya qarisla istaagay waxaan ku yidhi inaad haddii yaa ku soo diray haddii saldhigu ku soo diray qofka saldhigoo looga yeeli karaa markay doonto imanaysaa ikhtiyaar bay ku imanaysaa baanta imani beriiba imani dee iska tag haddaad leedahay imanka soo fuulla waa xaqee misyataa wixii ku xidhi jiray waa nimanka waan saf dhaaf way iska tegeen markay iska tegeen may soo noqono dee wax sharciya may haysanin ayuu haddana ka yar haddii ila soo hadlay walaal khalad baan sameeyo caynkaas waxaan ku yidhi ninka amarka soo bixiyey ii sheeg wuxuu igu yidhi waa ninka la yidhaahdo hebel ee dembi baaraha ah kii baan la hadlay waxaan ku yidhi ninkaasaan hay maxaad askarta u soo dirtay meena arrin baan nagu kala fududaynaynayo adigu ma dembiilaha walaalati waxa wala maxkamad baad maxkamadda sheegtay dembigeeda way adeysana dad aad u haysato wuxuu igu yidhi hawsha aan iska dhamayno aduu arrinkii baan la qaatay subaxii baan tegey saan warqadii soo saxiixo labadii nin aan shalay doonaas ka tahay meesha joogay ayaa meesha igu arkay mid baa igu soo booday oo yahay waxaan diraysa xidhana qofka shicibka ee saliga tagan caaya mid arkay kii kaloo maqaaxyaalkana shaah ku cabiyey ayuu soo kaxaystay si igu wada buuqan labadii oo igu buuqan hareeraha waa ugu jibirsay xidha waa la xidhay 4 saacadood waxaa laygu xidhay kiis la yidhaahdo kibirkii haddana layima qorina waxaa la yidhi walaalkii kiis walaalkii baa haddana layigi meeshii baan dhex istaagay meesha waxaan ku arkay waxaanaynu baan ma furmina daawan prison break wallaahi billaahi tallahi saldhigaas baan ugu ka darnaa meesha saldhiga koodbuur waad aragteen waa ta dhex bukanaan waqtigan oo kale ahayd inan xanuunsanaysa oo ku xidhan silsilad oo 3 habeen ku xidhnay qabow wallaahi billaahi tallahi meesha waxaan ku arkay inantaas la garaacayo la dilayo xataa kufti sheeganaysa dabadeed waan kacay war maxaad dilaysaa waan istay dibadda haddana soo fadhiistay markaan soo fadhiistay ayaan arkay haddana inama yaryaroo la dilayo oo raaxada lagaga qaadayo lacag laga doonayo si ay soo kaacaan war waxaan ku ka daaya waan kacay waxay dhahan kaliyuu kibirsayey geeya qolkii shahaada la leegay waxaan ugu galay 4 ciyaal oo min 14 jir ah ayaan ugu galayna waxay la xidhayihiin niman dib iyo kiis dul iyo wax isku haysta oo garas ay ciyaal isla xidhay akudan xaalad soo xidhay muraayad baad jibisay baan ugu yidhi wasagu ma jibisay sidaadeen maya kale hadii jibiyay hadaan jibin wata aniga haay ma yiraahdeen laakiin macnuhu waxa uu yahay afartuma muraayadooda jibina dhagax miyaan isla qaadaa soo kiis dibadda lagu soo qaado ma kiis saxdaal dee wax la weydiiyo halka si ay ku xidhan yihiin carruurtaas maxay ka baran kartaa meesha waxaan ku arkay maxbuusyada ka sarreeya oo dilaala oo albaabka kaa furaya dabeedna albaabka nagu yaro furan buu mid soo caro asuu nagu xidhay wasaa guri waa xagga nagu xidhay sooduma maxbuus hay nigada waxaan ku dirnay meesha waxaan ku soo arkay carruur waxaa meesha ku soo arkay askariga oo intuu moobaylka kula dil yimaado doonaya in lacag lagu soo diro oo labaatinta tanaado hebel garaac dabeedna hebel tanaado wixii soo dir lacagta lagu soo diraa lacagta lagu soo diro haaf ku qaadanaya haaf kalena dawlad adugu baan ku soo qaadaya ama qaar ama dee qofku doonaya anigoo halkaa taagan oo yaaban ayaa Allah u naxariistay ninkii maxamed wiir loo oran jiray laxamistaha waan geeriyada Allah u naxariistay ayaa meesha soo galay dabeedna qolka ku Cabdiraxmaan meesha qolka ku jira uu yidhi wax su'aal maxaa ku dhacay isagu waa kiis kibir la yiraahdo
oon ii qornayn haddana ayaan ku xidhanahay dabeed markaa taliyuhuna markaa uu maqnaa taliye ku-xigeenkana meesha markaa uu joogina labada ka hooseeya haaya taliye ku-xigeenkii uu tago iskuulaa ninkaasaa xidhan ninkii baa garatay waa soo daayay waan soo baxay qoladii baan la hadlay inanka ka xidhnaa warqadda u saxiixayay shawkii waa la sii daayay waxna waa saxiixin annagoo waa isweydaaranay ninkaan sii daynaya isweydaaranay dabadeed waxaan gartay muhiimadda meesha laga keenay inaan kaa xidhan sii daayo maaha inaan meesha ka warramo waxa yaalay xagga taalla waxaan la hadlay maalintaa wiiladaa ficlan la hadlaan malaynayaa maalintaas anoo aad u dhaqaansan waxaan la hadlay ninka maxaad baashan la yidhaahdo ilig baan la hadlay badri koosaaro baan la hadlay intuu wada joogaa khadar ciise dheeraan baan la hadlay waxaan ku dhihi beri doona shir jiraa'id baan qaadaya shirkii jiraa'id waxaa ku guntaday booliiskii oo dhan kolba mid baa soo garaaca waxbaan ka qabanaynaa anna waxaan ismuwaabalniya horkaadi badana waa loo gogol badayaaye muhiimaddu haddaad doonaysa inaad wax saxdo miiska uga fadhiiso inaad fadal baan la ballamay waxaan ku ihi adoo keliya ta kulma baahni adigii hogaankaagan u baahannahay subax baheed waxaa israacnay anigii rooble cabdi muuse iyo maxamed cabdi sheekh ilig iyo hogaankooda oo dhawanaysaa maalintaasi adag baan ula hadlay waxaan ku ihi dayna fadalow dalka idinkuma lihidin adigu jawigaaga de iguma xidhi kartid nuurkaagana iguma xidhi kartid adaad yar xayraansantayna ima xidhi kartid inta aniga xidhaa waa inta adigu xidhaa waxaan idiin sheegaya baan u sheegay ilaaha baa runta jecel gabaygaana waxay dhahdeen naga daa waxaan ku war gabayga lama daayey gabayga hadal maaha gabayga madashiisaan ka sheegi doonaaye waxa dheer baan idinka dayn doonaa haddaa wax ka qabataan taliyihii buu bedelay 6 askari buu xidhay irantiiba meesha laga saaray cilaajii waxbaa la geeyey wada hawl fiican uu ka qabtaa هنا فضل إلى أبوك تعالى ما علمت هاسي وحن كل واحد حس دونا وانا حس إياه لكن لحدي عسكري أو حري هل كان يقول شيء قالت هذا نظر قبل بوليس وكل يتمها nimankan masaakiinta ee saldhigyada jooga inaad waxba lama siiyo aqooni ma jirto booliisku reform buu u baahan yahay halka u sarraysa ilaa halka u hoosaysa booliiska inama wada karo waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha kale ee inaga khaldani ilaa xagga hoose ugu hooseeya askariga hoose ilaa xagga u sarraysa sida uu nin walbaaba halka uu taagan yahay uu jecel yahay inuu sidoo doona ka yeelo waa tan leeyahay doctorkii ii sheegayay maalihiisa siduu maagan yahay moodistiyatiisa ikhtiyaarku maamuli dalkani maanu ka xoroobin wasiirku warqadda kuu saxeexo xoghayntiisu waxbay kaa doonaysaa inay shaabadda kuugu dhufato go-aan kale gaadhaysaa walaa waxyaabaan dalku arkay gabayga idin bilaabayaa wuxuu yidhi mar haddii murtida loo kaco maanta tirinteeda midhqiyaaska waayaha markaad maanse ku abbaarto maya iyo hanbaa lagu unkaa lagu majeertaaye run baa lagu milaalaa naxwaha miidha gabaygaaga mafar laguma raadsan tixaha mooshin lagu qaado waa maqaalo gaaroo bandhiga dood miskiin qabo weligeedma maandeeq rag baa maalo keligood muraadkoogu waxa uu fulaa dhowr mataana ah mashaariicda waxaa loo xidhaa tuuga maal badan afmiishaarka mooye nin kale maydhax kama diiran macaluula shacabkii badnaa hayna laga meeri dayaruhu masruufkuma helo maalin udha wiilka ma macdaad ninkuu leeyahaa maandhow qarankeennu yaan xeer shaqeeyiyo dastuur meesha loo dhiganin malihiisa siduu maagan yahay moodistiyatiisa ikhtiyaarku maamuli dalkani maanu ku xoroobin saldhigyada miyaad soo martood aragtay yuuqooda miyaad maqasho ceebaha dhex yaal miiska taliskeenna muran iyo jikaarku ku dhiciya maaha iyo waytay wanja lagu muraadsadaa xabsiga dhiiga lagu birto xarig loo maleegiyo dembiga loo macmalay aadmi mu'aamarada inuu caawada kiisu magac raadsho marmarsiimo beeniyo xujada muumin lagu ogin yagaaba kiisa ku sameeyay faruu ku taagay mid kale kaaga qabay bug halkaas laga hortaya
حتى لو قلت ساعة محبوس شغل أكو مضمونة مرة واحد يصير هذا كلام صحيح أخو تام جاه الله مريم ولد قبل جدي مقدر راجع هذا كم مدو كهامل العيد كهامل العيد ظلم موشة موجودة هردية ما يدي حبه ما هذا مدباني قبل حين ما كنت طلعنا سيدا وجا لامري وحان حلا يموني ذا كوجاري مقلنا لدول شوك سيدا هوين ميرك لقى قاضي مدرو كوتش فيديو وشروق ميناي مرجية ذا بتكو كلام دعيك كم مقيقاي طب لما عيدا جرتي من حلا هي ما تدا اسمه رؤية بياري مروا فرحكم صوتك أركتدا قلوب أصل مشاحي موصلنا وجبار عقد عي ما أنا كلواء كبير كبركي محسني ما تدين العيسى ما تدين العيسى لبضع مرحلات سوله مو قد بحنا يسمى الميل عدو الكوت كان مدى شاسي أو مدي حاجة مركا لا نقول شيختي دين تيدا فول كان كودي من القدوم كي جمسنا كوتشوك سنعكت من اللقماويلي واحد بيحنا المدو قيسي مرادينا مرد باسيدي روح لمريم أحبس وقعي الله ما كان قال كان مرتي تايم ومريم الله ما قال كان مرتي هاي مو مرينا مساحتها منه ليبيا ليس محستنا وطني قبل متحابيا شوقا من كيسة من تصورة من شعر أفضلا من ضعيف وثيقا من مبادر لكل حياة مرة كبرى مرة بعد تلقي ما هكذا أكو مرة تاني من ملاويين باكو هلاي ملوكا بالكذا ملك الدريدة مصطفى عدان لو مشهر قاتم مقفى عسكري لو قد جاي موجش قديس مريض يقولت أنا أركو هذا مركز أفتن بيدت لو تبيه حكم علينا يا دولة البلد ملك ما هلا برو حنتيو دولة البلد هذو ومصير مدلله هيو ما قش تدوينه هو مجابي قبوا مسكين ميرين تهاروكا من في عدو وذكر كل جميد وبايع ما سبوح اللون يبيو منصب روح الله يبيو ماري درهنا حيث ما هذا الآن قبل با كامر تبادرونه مسافة اللقطة تاجر بين الدروق طايا مسكها عطت كلا جهنا حيش كامر قال درجة بتكون بطلوا موج شرف دينا موافقة لهذا الضيهم الودكورة